kulanti waxaan wanaagsan meel walba joogtid si walba maqalkii ku soo gaarayo soo dhawaw marka hore hadda page-kan ku cusub tahay aan ka codsana aayad inta xaq kugu leeyahay waaye page-ka follow dheh laagtaada waa noo muhiim comment-na la wadaag asxaabtaadu sii share garay waxaan u baahanahay saaxiibo qaaliya inuu halkan aan ku midowno oo aan sportiga ugu hadalno soo dhawaw saaxiib marka hore aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay haddii aad intaas ii samaysay marka labaad videoan waxaan rabaa inaan ugu hadlo ama ugu hambaliyeeyo kooxda Man United oo wadadii guusha ku soo laabatay xalayne markii labaad oo guul xiriir ah ay gaareen goolna lagama dhalin Man United labadii kulan ee u dambeeyay shabaqooda nadiif ah ayay baxeen ninkii Onana ahaa waxaa moodaa markaa inuu la soo qabsanayo horyaalka Premier League shabaqiisa markii labaad ayuu ilaalsaday kulankiisii labaad Mason Mount xalay qadaqaagiisa aad u fiicnaa xilli oo koorna soo qaaday ninkii Casemiro ahaa mar labaad ayaa shabaqa laga celceliyay Casemiro oo goolashiisa iska sii wato Amrabat oo garoonka xalay la yaabay isaga iyo Casemiro Man United dhexdooda hadda kadib waa shub ugu soo carar Man United wixii hadda ka dambeeyo waayo nin Amrabat la yiraahdo iyo Casemiro ay is-agstaagaan Man United cid u dhawaa karto ma lahan sanadkan waxay idin rajaynaa Man United koobka inaad difaacataan oo markii labaad oo xiriir ah inaad ku guuleystaan maadaama xalay 3-0 ay ku dharbaaxeen kooxda Crystal Palace waayahay dhanka kale kooxda Arsenal iyo waxa wada ciyaari doono Brentford ayay away u yihiin Arsenal caawa waxay ku soo ciyaari doonaan guriga Brentford Arsenal waxa la leeyahay caawa waxa ka maqnaan doono xidigooda Star Boy ninkii la yiraahdo Bukayo Saka Declan Rice iyo Martinelli shaki ayaa ku jiro Arsenal waxaa moodaa in dhaawacyadooda ay hadda bilowdeen maadaama shaki la gelinayo kulanka caawa Carabao Cup maadaama uu yahay oo Premier League ahayn balse dhaawac marba hadduu bilowdo waxaa laga yaabaa ciyaaryahanka inuu maqnaado 2 isbuuc ama 3 isbuuc iyo in ka badan waayahay kooxda Liverpool waxay soo dhaweey doontaa kooxda Leicester oo horyaalka Premier League sanadkii hore ka hartay Newcastle waxay soo dhaweey doonaan kooxda Man City Pep Guardiola sanadkan mayuu qaadi doonaa mar labaad 3 ley waayahay kooxda la dhibaatoonaysa guuldarooyinka iyo bareejada mar waliba ku jirto Chelsea oo ugu dambeyn loo ogolaaday inay fanaanada ku sameyn karaan xayisiin Premier League iyo kooxda Chelsea waxay ka heshiiyeen inay Chelsea fanaanada qaybta hore xabadka ay xayisiin ku sameyn karaan heshiisku u dhacay ala leeyahay kulanka caawa ee Chelsea soo dhaweey doonto kooxda Brighton ama kulanka Fulham ee Premier League ayaa midkood Chelsea ay ku ciyaari doontaa fanaanada qaybta hore ayay ugu qoran tahay xalay ayaa loo ogolaaday caawa ayaa laga yaabaa in lagu soo bandhigo garoonka Chelsea ama kulanka Fulham waa Chelsea caawa ma ku soo laaban doontaa wadadii guusha kulanka ka tirsan Carabao Cup waxay soo dhaweey doonaan kooxda Brighton mar labaad waxaan leeyahay hambalyo kooxda Man United oo si xaraga leh xalay ugu badisay kooxda Crystal Palace 3 gool iyo waxba waliba ku darso horyaalka Premier League waxay la ciyaari doonaan isla kooxda Crystal Palace Man United waxaan leenahay wadadii guusha ayay ku soo laabatay United waxaan leeyahay karnaa markaan Man United way soo laabteen ku maasan tahay daawashada muuqaalka haddii uu ku soo gaaro si share garay oo asxaabtaada la wadaag ra'yigaada waa noo muhiim ee nala wadaag qaybta hoose ee comment-ga laagta hanaga iloobin waa dhiirigeliyaha muuqaalka calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh